wuxuu dumarka ugu maahayaa midabka weeyaane majaafada xun lama guursado iyo taan milgal ahayne adoo malanda oo guur in badan xila u meeraayey gabar miiganoo culus haddaad milicsatood eegto asaad maxabbadeedii qalbiga yaraha maan raacdo haddaad mudanihii aabbaheed madal ku weydiiso moodka iyo gabaatiga tolkaa lagu murweeyaaye hadduu kugu mucaarado inaad yarad mihiibsiiso wax mashaakil iyo ceeba waa malow la'aanteede muraadkiisu wou sahal ninkii mooga foobsaday gabyacaan ahaa oo la odhan jiray cabdi maxamed awmagan cabdigalayaxna ku magac dheeraa 1925 ayuu ku dhashay meel ka mida geyiga ceelgaab loo yaqaan wuxuu ku barbaaray oo ku tabaraystay doollo iyo toomaha wardheer galguduudna wuu ku gaboobay sidiisama tarbaxnaan wuxuu ahaa reer miyi aan caanaha geela gelinna ka maarmin oo magaalada inuu sodcaal ku yimaado mooye aan weligii ku nagaan maansadii uu muddada dheer tirinayay waxaa badanaa yaqaan dadka degaankiisa iyo shisheeye ay cilmi baarisi u geysay dabadeedna qaybo ka mid ah buugaagtooda ku daabacay sidaa awgeed gabayadiisa quruudda badan lihi tabtii loo baahnaa dadweynaha Soomaaliyeed uguma dhex faafin ma ahayn sida hal abuurada reer magaalka nin ka faa'iidaystay teknoolojiyada casriga ah ee qaybtii dambe ee qarnigii 20aad ay Soomaalidu baratay inay suugaanta isugu tabiso waxaan u jeedaa idaacadihii dawladda Soomaaliya iyo cajaladihii kaaseedka ahaa ee isticmaalkoodu lixdanadii iyo wixii ka dambeeyey uu si aad ah dalka uga dhaqan galay si kastaba ha ahaatee 70 muddo ku dhow ayuu galay xagabyay ujeedooyinka ay Soomaalidu wax ka tirisa intooda badanna waxbuu ka yiri ha yeeshee waxaa jira laba ujeedo oo aad maansadiisa uga dhex muuqda kuwaasoo kale ah guwaabada iyo ammaanta geela si kolka aydun wuxuu naga ogaataan nooca dhaxalka suugaaneed ee uu gabyaagaasi inooga tegey waxaan isku dayi doonaa barnaamijkan iyo labada xigi doonaba inaan ku soo qaado tusaalayaal gaagaabanoo maansadiisa qaarkeed aan idinkaga soo goldooxi doono markii haddaba haasaabo loogu yimaado halkuu galayax jeclaa inuu ka bilaabo aniguna intaan abbaaro aan wax idinkaga iftiimiyo tixihii uu geela ku ammaanay qaarkood wuxuu ahaa nin si xad dhaafa meesigaa u jecel oo aan xoolaha kale xoola u aqoon caanihiisa mooye oon kale oo idili ay la xaraarayd magaalada iyo waxa laga gasiintaana ay hafadya la ahaayeen taasina waxay sabab u noqotay qiyaasta 2 dalool oo maansadiisa ka mid ahi inay ku saabsanaato ammaanta geela dheefta uu leeyahay iyo tabaha ugu wanaagsan ee loo dhaqdo wuxuu ahaa tan iyo kuraynimadii nin dhaqaalaha geela u googo'ay sidaa darteedna aad u yaqiin dabeecadaha 3 jaad ee uu ka kooban yahay waa siif dacarka mayga iyo Soomaal cadke taa ayaana kol dambe ku dhiirigelisay inuu ku faano aqoonta meesigaas cid kula tartami kartaay inaanay jirin sayid maxamed raaga ogaas iyo odayadii la da'da ahaana allaha ka dhige 1975 gabay uu tiriyay waa kii ugu arartay anoo qayd Mareykaana qaba maraba wacayna iyo haatan madaxayga oo meela ka cadaaday intaasaan mareerta u sitoon dabab maluugnaaye wax dhan baan mataanaha ka shubay tii macaan badan ee wax dhan baan wadaan uga malmalay eegal maax kulule wax dhan baan habeenkoo mugdiya mayracoo rogay wax dhan baan ku miray toomihii mulufka weynaaye wax dhan baan magaalo u huray oon meeriyo dhaqaye wax dhan baan haween uga maqnaa mehersigoodii wax dhan baan maqaarada u siday igara muuq dheere wax dhan baan u maray baarqab tii maydabta ah wax dhan baan islaan soo martiyey gaawuhuu muraye wax dhan baan masaar qaatayoon mooraduu dhigaye madow iyo caddaan iyo guduud midabyadii geela macnihiisa oo idil sidaan anigu moodayo kolay maxamed iyo raaga tahay odayadii mayday waa muran nin kale oo iyiri kaaga muunsanayay